بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي كبر يا الناس سبحانه وتعالى إنه عمل كيني يدينا خالصا لوجه الكريم كدقه. إلهي كبر يا الناس سبحانه وتعالى إنه مستحديني عهد كينا صومريه وحرالي كي هي. إلهي كبر يا الناس سبحانه وتعالى حلقات كان صوص عضاء مسجل دونه إن إلهي ميزانك حسناتك وينوصاره حسنات خيرنا الكهله مدن الله كوافعه عدة كشقينا يساي عدة سجل يساي عدة نشرنا سنة خير إلهي كواباليه سبحانه وتعالى في الدارين. اللهم صل على محمد. حلقة سيدي أينو حلقة أما كلمات هراء دحدودا عن كوير إشارني وحين قلت لك اللي سيكوبان qaybo kala duwan taariikh nololeedkiina ka sheekayno qaybihii kala duwanaa iyo juhuudii iyo noloshiisa intii aanu kala soconay ama aanu la mucaasirnay sheekheennii Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Xaaji Yuusuf raximahullah raxmatan waasica. waxaan ugu magac darnay suwarun min xayaati Sheekh Cabdinaasir duruusun wa cibar, suurado ama muuqaallo ka mid ah noloshii sheekha iyo intuu noolaa iyo juhuudiisii maruu u faa'iideeyey qaybo kala duwan aan ka waramayno, arrintaasoo duruus iyo cibro qaadasho ay ku jirto. culimadu zamanka taraajum baa loo sameeyaa oo tarjamaadkoodii baa la qoraa si juhuudoodii iyo tarjamadoodu aanay u lumin culimada. waqtigan maanta la joogana waa looga sii baahi badan yahay baan isleeyahay waqtiyo kale ee la soo maray. sidaa awgeed waxaynu xalaqaad ka dhigi doonaa suwarun min xayaati Sheekh Cabdinaasir duruusun wa cibar. marka ugu horeysa waxaan isu dardaaraynaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. alla wuxuu yidhi subxaanahu wattaquu llaha waclamuu annakum mulaquuhu wabashiru lmu'miniin. alla ka cabsada dad yahow, ogaada inaad idinku ilaahay la kulmi doontaan oo dunidan aad ka wareegeysaan. wabashir الصاabiriin wabashir الmu'miniin. mu'miniinta u bushaare, mu'miniinta u bushaare. mu'miniinta maxaa loogu bushaaraynayaa? fadli weyn inay leeyihiin. wabashir الmu'miniina biana lahum min allahi fadla kabiira. رسول الله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. الله كعبصو ميل كستو أجوتك سبحانه وتعالى. علماء وحا إليه مقدمية حتى نصميه راب علوس بالكليه مدى راب علوس علماء الكليه أهل العلم خير مدى لن يحشوه نلوشو ذا يمركي أي كيريو ذا لحلقة المضوطة له. ابن القيم كتاب اسمه مفتاح دار السعادة رحمه الله وحليه ضدكو وحي أودان إنه ككاف تومان ويسكنوا الآذان عن المهندس والأطباء. يقو أن انجنير هيسن ودخاتير هيسن مجتمع ويسكنوا لك، لكن مجتمع علماء الآن من نولاك. علماء الآن من نولاك. هل تصالح هذا سوق بأنه حديث أبو داود صحيحة في صحيح سنة أبي داود صدح بغصدني تحرق كيسي من حديث جابر. أي جابر وحولي سفر بانو قال لي نين نقمي ذا وجمع إني كمي ذا أي نجح كل عي ودخرمي مركاسو اسكو جنوبي ننكي dabeetana raggii nala socday markuu la tashaday oo yiri sidee yeelaa dhaawacna way igu yaalaa culus madaxa mana maydhan karo, war wax ruqsada ma ii helaysaan? jawaabtii waxay noqotay kuu helimayna wax ruqsad ah inaad qubaysato mooyaane. waa qubaystay kabacdina waa dhiig baxay waana geeriyooday ninkii. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa looga waramay markii ay raggii soo noqdeen magaalada Madiina soo galeen. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qataluuhu qatalahumullah way dileen allaha dilee
alaa sa'aluu idaa lam yaclamuu may su'aalaan haddaanay garanayn fa innamaa shifaa'u lciyi su'aal waxaan la garanayn ee jahli iyo aqoon la-aan lagaga sugan yahay waxaa lagaga dawoobaa oo lagaga bogsadaa waa su'aal la su'aalo ciddii aqoonta u lahayd islamarkaana uu ka jawaabo. waxaa ku filnayd buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu tayamumo ama uu boodhaysto ayaa ku filnayd. nabarkaa dhaawacahee dhiiggu ka soconayana inuu xidho ayaa ku filnayd buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, oo dabeetana gacmihiisaas uu ku tayamumo intaasaa ku filnaan lahayd. waxay tusinaysaa baahida waxa weeyaan culimo hadday dadka dhex joogto ummaddu si maxaan ku idhaahdaa adag ama dhiblen uma dhimanayso, una dayacmi mayso, diintooda waa ilaashamaysaa. culimaduna waqti kasta oo la joogo fadligoodu cadiim buu ahaayood ciddii taqaana way garanayaan. miaal haddaan soo qaato maalan ninkii la ohan jiray alwasiir ibnu hubayra raximahullah, nin wasiirahoo la weyneeyo oo maal iyo sharaf iyo mansibba haystu ahaa. waxaa dhaqan u ahayd inuu culimada intuu soo uruuriyo salaada casar kadib laga niqaasho masaa-isha furuucda shareecada. galab ka mida galbihii buu isu keenay nin faqiih oo culimadii fuqahadii maalikiyada ka midana meeshii uu yimid. masalaa la rogrogayoo waa laga niqaashi. markaasaa masaladii waxay noqotay culimadii inteedii kalena inay rajaxdo qowl, wadaadkii faqiihiisa maalikiga ahaana uu qowlkii kale rajaxo. lagu celceliyey. markaasaa wasiirkii wuxuu yidhi aximaarun ant, warma dameer baa tahay, hadalku muxuu kuu gelilaayo raggaa kale o dhan u waafaqi la'da. ninkii sheekha ahaa ee faqihii maalikiga wuu iska aamusay. markii la kala dareeray wasiir ibnu hubayra habeenkii oo dhan ma seexan. hadalkii uu gefka ahaa uu ninkaa sheekhaa ku yidhi sheekhiina iska aamusay ayuu aad uga calool xumaaday. subaxii markuu waagu bariyey ayuu ragga culimmadii isugu yeedhay. ninkii sheekhaana waa u yeedhay, madaxu ka dhunkaday. say xitaa madaxdu culimada u ixtiraami jireen, iska dhaaf shacabka madaxu ka dhunkaday. markaasi wardadiihow halkan fadhiyaa shalay hadal baa iga dhacay, habeenkii xalahaa kama seexan, ninkaa sheekhaa waa ku gafay, habeenkii xalaha hurdo fiican ma seexan. markaasuu sheekhow saamixnii, isaamax sheekhi. qaala qad cafawtu canka, waa ku cafiyey. qaala laa saamixnii, ma si fiican ii saamax. qaala saamaxtuka, waa ku saamaxay. madaxuu ka dhunkaday. markaasuu wuxuu ku yidhi wax dana iyo wax muraadan kuu qabtaa xaaje ah ma leedahay oo kugu taagan? maya, wax xaaja alxamdulilah mali. ilaahay baan kugu dhaariyey, dayn ma lagugu leeyahy? markaasuu iga daahay weydiinna. maya, kaa dayn maya, waa ku dhaariyey. waa laygu leeyahay. imise ilaahay baan kugu dhaariyey? waxaa laygu leeyahay 100 diinaar. 200 oo diinaar buu soo qaaday. 100 buu yidhi 100kaasi deenka isaga bixi, 100kaana isaamaxoo waa kelmadii aan kugu gafay ee aan ku idhi weeyaan. mithaalkaas waxaan usoo qaadanay culimadu xitaa dadka madaxda ah ee manaasibta sarsare duwalka ka haysa say u ixtiraami jireen culimadooda. haddii hadal yaroo xitaa khaldan uu kaga dhaco say u ixtiraami jireen. shacabka iyo dadka kalena iska badaa. sidaa awgeed baa waxaa muhiim ah daalibulcilmiga iyo culimada iyo ducaada dhammaan dadka ahlucilmiga xurmadiisa iyo ixtiraamkiisa. intaa haddaan kasoo gudbo baaraka allahu fiikum, waxaan u gudagelayaa bal inaan wax ka sheekayno suwaro iyo qaybo ka mid ah taariikhda sheekha noloshiisa calayhi raxma raximahullah. cibaadadiisii baan ku bilaabayaa. sheekhu wuxuu ahaa kaana yuxibu alcibaada waaltacabud lilahi tacaala. cibaadada wuu jeclaa, ilaahay inuu caabudo, aad u cibaadaysto jeclaa. diinta intii tabartiisa ah waxaa markhaati ka nahay inuu shareecada ku dhaqankeeda intii tabartiisa ku dhaqmi jiray, jeclaayo aad ugu dadaali jiray, oo cibaadada aad u jeclaa. qur-aanka sheekhu raximahullah wuxuu lahaa raatib uu akhriyo ayuu lahaa sheekhu raximahullah. subax kasta salaada subax markuu tukado oo adkaarta subaxii salaada ka dambaysa uu akhriyo, oo adkaaru sabaax buu akhrin jiray sheekhu. wuxuu adkaarta ka akhrin jiray kitaab
sitay in dhaweyd intii sanawaad kitaabkaasa jeebka ugu jiri jiray ma faaruqi jirin oo kama tagi jirin fil hadari iyo fi safari safar hadii ku jiro iyo hadii uu maxaan ku yiraahdaa safar ku jirinba mara kasta uu gashan yahay jeebkeeda waa ugu jiri jiray sheekhu rahimahullah kitaab yar oo kooban oo awraad iyo adkaar ku qoranta magaciisa waxa la yiraahdaa awraad ahli sunna wal jamaa waxa iska leh sheekho la yiraahdo Muayyad Abdul Fattah Hamdan oo kitaabkan Hisn Muslimka ayuu leeyahay kitaabkaas uu la soo bixi jiray adkaar fara badan ay ku taalo uu akhrin jiray sheekhu rahimahullah mushafku soo qaadan jiray ka bacdina juz quraan uu akhrin jiray laba rakacadood buu tukan jiray oo labada rakacadood shuruuqa kadibna sheekhu waa bixi jiray hadaanu marka ballan adag lahayn ama aanu darsi u kacaynin xisad galeen wuxuu jeclaa inuu soo yara luglugeeyo 1 kiiloomitir ama 2 kiiloomitir wax ku dhow ayuu soo lugeyn jiray markaas aqalkiisa ku soo noqon jiray hadaanu marka soomanayn oo guriga markuu yimaado waxa dhaqan u ahaa rasuulka sheekha kaleeyhi rahma in uu marka quraacda iyo futuurka goor hore quraacdo heeba uu ku quraacdana wuxuu ugu jeclaa sheekhu rahimahullah laxoo haruur ka samaysan oo shaah iyo sixin lagu daray ayuu ugu jeclaa oo sheekhu ku quraacan jiray وكذلك عانها جيل استعمالكooda markuu helana sheekhu waa jeclaa rahimahullah duxadu tukan jiray xilliga duxada la tukado aad buu sheekhu wuxuu ugu dadaali jiray salaada jamaacada inaanay dhaafin oo uu takbiiratul ihraamka ee xirashada uu la xidho safka hore ku tukado aad u jeclaa salaadaha shanta misaal hadaan bixiyo sidoo jamaaca u jeclaa sheekhu safar baanu mararka kamida wada galay waa israacnay safar baan wada galay magaalaanu tagnay model baanu ku dignay laba qol baanu kala dignay salaadii subax gelin dambaanu galnay magaaladii salaadii subax baanu soo baxnay wiiga soo horbaxay isagu anna waan ka soo daba baxay masaajid meeshii ku dhawaa aan ogeyn baanu soo aadnay ku tukanay salaadii subax masaajidkii ribeedin iyo tarmiim baa ku socdo wala dayactiriya lagu tukan maayo isagoo masaajidkii ka soo noqday iyo anigoo markaa ku sii socdaa iska hornimiyo masaajidkii ma shaqaynayo waa kana kadibna waa soo noqonay wax masaajid oo ku dhow meesha kale waa weynay aniga markaa waa iska noqdo gudaha iska galay waxaan isii daba hodheelka meel yar oo lagu tukado leeyahay ku tuko sheekhu markii soo dib uu isna u noqday banaanka uu baxay meelaha oo dhan buu soo eegay bal meel masaajid jamca ka helo xero boolis baa ku dhow masaajidka hodheelkaanu deganay xerada booliska malaha waxa ku dhex yaala mid yar oo askarta loo dhisay inay ku tukadaan iyo shaqaalaha meesha jooga marka aan soo tukadaan gudaha hodheelka ku tukadaan soo baxay isagoo wuxuu iga horiyay sheekhu oo sheekhi marka xagaad u kacday wuxuu yiri waxaan bal isiri bal daanta horena u baxo bal inaad hesho masaajid jamca laga tukanayo waan wareego waa soo waayo halkan waxaan ka helay xeradan booliska inagu dhow mid ku dhex yaalo oo dhowr qof baan ku tukanay oo shaqaalihii ay joogaan aan ku tukanay yani waxay tusinaysaa misaal yar koobane salaada jamca sheekhu uu ilaalin jiray rahimahullah rawaatibta salaadaha rawaatibtaana saas uu ilaalin jiray 12 rakacadood sheekhu aad buu ilaalin jiray rahimahullah rahmatan wasi'a inaanay ka tagin buu aad ugu dadaali jiray sheekhu rahimahullah ta'ala salaatul leylka kama tagi jirin wuxuu ii sheegay maraan su'aal weydiiyay salaatul leylka ku saabsan sheekhu wili marna ma ka tagtay muddo dheer in salaatul leylka uu laazimi jiray oo aan ka tagin buu ii sheegay wuxuu ii sheegay muddo dheer oo ku dhow 50 sanadood inaan habeen salaatul leylka tagin buu ii sheegay 50 sano muddo ku dhow habeenaan salaatul leyl ka tagin buu ii sheegay habeen kasta uu tukan jiray xitaa haduu safar galo oo goor dambe uu safarku ku beegmo marka uu dagu iska tukan jiray waxa dhaqan u ahayd kowda habeennimo inuu kaco hadii uu daaho kowda 25 kowda barka qaaliban ma gaari jirin uu kici jiray hadii uu dad la hurdo oo marka uu joogo aanu qol keligii hurdin oo safar marka nahay oo kale midalan ودadka dhex joogo tartiib uga baxaya dadka shanqadhiisa in qof ogaado ma ogola
tartiib buu uga baxayaa, bannaanka u baxayaa, waa soo tukanayaa, laba ragcadood buu u tukan jiray. markuu laba tukadaba intuu fadhiisto ayuu wardin jiray, waa ducaysan jiray, wuu kici jiray, laba kale u tukan jiray. markuu tukado ilaa labada iyo dheeraad markay tahay, saddexda wax dhiman buu soo noqon jiray. markuu ka baxo salaada muddo dheer buu ducaysan jiray. mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in meel ugu dhow uu ku tukanayo oo markaa uu ducaysanayo hal eray oo ducooyinka uu ku ducaysanaya dhagahayga inaanu maqlin, oo aan isku daya xitaa bal inuu aan kalimaad ka maqlo wuxuu ku ducaysanayo, hal eray dhagahayga ma maqli jirin. siduu u qarsanayo ikhlaaskiisa iyo qarsashadiisaas iyo markuu in badan ducaysto ayuu soo kici jiray. firaashkuu tegi jiray, tartiib buu usoo geli jiray, wuu yara seexan jiray. ilaahay waxyaabaha uu siiyey waxaa ka mid ahaa hurdadiisuna waa fududayd, markuu kacayo, markuu seexanayana waa fududayd. dhinaca hadduu dhulka saa u dhigo horu ka gami jiray, markaasuu yara seexan jiray ilaa inta saddexdii xoogaa laga gaarayo. hadhow buu soo kici jiray sheekhu raximahullah. haddii markaa intuu iska sunnaysto laba rakac iska tukado buu darsigii hadduu leeyahayna diyaarin jiray, haddii kalena uu iska tasbiixsan jiray sheekhu. kabacdina horu aadi jiray. wuxuu jeclaa adinka intaanu dhicin masaajidka inuu tago, isagoo jooga loogu adimo ayuu jeclaa. wuxuu ahaa kathiir alwardi, wardigiisu wuu badnaa, awraadda iyo wardiga ay aad buu u wardin jiray. ayaamkii sanawaadkii u dambeeyay cumrigiisa wuxuu qaadan jiray misbax yar, tusbax yar oo akhdar ah buu qaadan jiray, oo qaaliban uu sheekhu ku wardin jiray raximahullah raxmatan waasica. inta badan haddii uu socdo iyo hadduu u fadhiyo wuu ku wardin jiray sheekhu raximahullahu tacaala. adkaaru sabax walmasaana saasuu u xifdin jiray. halhaysna wuxuu lahaa sitraka yaa rabbi, ilaahayow asturkaagaan ku weydiisanaya, saamixnii yaa rabbi saamixna, hadalladuu oran jiray bay ka mid tahay, ilaahu ina saamax, ilaahuna astur. sheekhu oran jiray raximahullah raxmatan waasica. xalqada koowaad intaan kusoo afmeerno insha allahu tacaala.